بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر أوادا شبكة برشاميديا.com. شبكة برشاميديا.com أو مالكتو سبتيا كده يستعمل برنامج كفانكا يسوعانتا. أيام ما توحى مرتين نوجوا أبوان حسن warsame xiireey oo loo yaqaano Abwaan Xasan Gabay. barnaamijka maanta waxaan kula fikir doonaa abwaanka iyo suugaantiisa iyo waliba taariikh nololeedkiisa. abwaane ku soo dhawow shabakada bulsho media. waa maasantaa ku soo dhawaad maxaad si weydiis. abwaane marka hore waxaan ku weydiiyay bal horta taariikh nololeedkaada baan rabaa inaad si noo soo koobtid. taariikh nololeedkayga horta anigu waxaan ku dhashay magaalo la yiraahdo Galaadi. waan ku koray 20 sano markaan jiray yaan ka tegay askari baan qortay. askariga markaan qortay waxaana la ku soo xareeyay hiilweyn waa 70 iyo 72 bishii lah ka bacdi intaan ka tegin magaceedii dhaantada iyo yaan iska tuntuman jirnayo oo dadkaas oo dhan dhaantada tuman jiray dhalinyarada. marka waxa weeye markaan meeshii tagay askartii aan noqday waxaan arkay niman gabay la yiri oo gabaygoodii uu sanahayn wax yar oo guurow oo wax yar bay 1500 oo nin iyo waxaan ahayn 400 meelahaas oo gabdhaha. marka waxaa dhacday in aan arkay nimankii inaan xoogaa dhaamo yaan isir walaa kuwa hadda wax isku dubarid showad ka fiican wixii baan isku wax wixii isku dubarid. waxaa dhacday marka gabay baan soo sameeyay gabaygii dhalinyaradii saaxiibaday ahaa yaan waxaan yiri warbaliga control oo Soomaaliga oo isla afgaranayni dhalinyaradu way controlna waxa la si fiican weeye gal subxii dambe uun baa firtay gabaygii waxba ka garanayo waqtigaas ay ahayd mana duubin mana askari waxa sheeko ah laakiin waxaan ka garanayaa hablahana hal baan oranayaa sida hubaasha haween hay iska dhiginina rag baad helin la joogtaan oo kul hadii dagaal la isku helo hadawgu qiiqaab helaa oo kaleetiga sidii wiil ku soo haada hawaysinina guur intaan horumar gaarayno ka huwada jacayltootaha laga horgeeyay markaas isku kay dhoobeen gabdhii maana gabdho ugu horeeyay oo adu gabar ma aha urur dhisan ugu horeeyay oo militariga ah oo gooni adu halkii waxa la iiga baxshay Xasan Gabay jimco walba waxaan baan isku soo duway yaan sii deynay magacaan Xasan Gabay aniga waxa horta aan ku sheekada ku dhaafay bagayga adiga haba sheegay Xasan warsame xiireey baa yiraahdaa Xasan Gabay waxay iiga baxday waa halka taariikh nololeedkii marka waxa la iga dhigay ururkii salan sharafta markaan qoday shirkii Afrika wax ka salaam madaxweynayaasha markii laga soo noqday madaxweynayaasha tageena gabay baan meesha ka tiriyay wallahi hal xabba ka garin gabaygii waxa la ilaa waxa bedel ta horseed على سنة بدل ورسيد يبدل إلا بربركي ورسيد برجو دي وحاسن سمية وحاسن وحن هذا الرواية عن سمية الرواية اللي أوريجي نبدأ نبدي بعشرتي لكن رواية وحبان كده جاي إلا في آخره هذا لا أوركره رواية أنا وحكت لي بمجد مركا وحاول horta aniga taariikh nololeedkaygu kaasoo ahaa wixii burburkii ka dambeeyana taariikh nololeedkii dadaal bi isu cun oo hadii waxaan nahayba ma jirin adduunkii oo dhan baa lagu kala yahay waxaan noqonay waxaan jirin baa okay abwaane burburkii kadib waa Soomaaliya way burburtay qabyaalad baa la isku laayay dhibaatooyin fara badan ayaa soo baxay waxa aan maqalay inaad samaysay ama aad soo wada fiilmo ay ka mid tahay waliba Halaagii dhacay loma kala harin oo dad badan oo Soomaali ay aad ugu heleen in badan ay isku aqooninba abwaanka sheekada sameeyay iyo sheekada laftigeeda marka burburkii ayada maxaa ka tiri horta waa run oo falkigii hore
dadkii aanu isnuqinay wax dhintay iyo wax dhoofay iyo wax dhaan raacay buu noqday wax dhaan raacay markaan leeyahay wuxuu noqonayaa qofku waa markuu duqoobo ama si kala noqdo waa arrintu waa ka lumaysaa marka fankaygiiba hadda waxaaba kow noqday oo sida dadka cusub aan noqday waa barnaamijkan yarka ah oo aan gabayga ahayn oo heesta ahayn oo waa sheeko sheekadaasna waxaan ula dal lahaa markii aad gabayda waxay ku leeyihiin wuyuu yahay waa reebel anagu noola jeeda si aan loo oran anagu noola jeeda yaan waxaan sameeyey barnaamijkan dadweynow waa filmadiini waa filmadaydii waa filmadaadi waa filmadeeni waa filimkii la magac baxay halaagii dhacay looma kala harin halaagii dhacay looma kala harin waxaa soo sameeyey abwaaniinta kale ah SSDF SNM UNC SB waxaa laxamada iyo codadka macmacaan saaray SNF SDM SDU USB soo dhaweeyaha dariiq kasta kuu taagan waa wadaadada atooraha filimka waa fanaanka jirida wanaagsanaayo waayahanba laga daba dhacay waa qabiil atirishadu waa gabadhi la isugu lumo Soomaaliya qabriyada uu ridaa waa kursi atooraha labaad waa been atirishada labaadna waa gaajo seenyaaleeyaha muusig iyo dadweynaha kala dhex taagan muusigana dalbanayo waa qabqabli waxaan naadinaya fanaan xayeysiinta iyo buunbuunintu waa fadhi ku dirir farshaxanka qurxoon iyo sawirada waxaa kuu soo bandhigaya siyaasi tigirka waxaa kuu jarhaya maalqabeen muusigii hore waa laga ilbaxay muusiga casrigaha lagu kala sameeyey dalka Mareykanka iyo dalka Ruushka kataarka codka dheer oo liidka loo oran jiray waa teedhisan waxaana kuu tumaya gacan ku dhig la dhageyso bayska codka reemi jiray laha waajiib waxaana kuu tumaya mooryaana dhageyso saxophone alto waa suug waxaana kuu tumaya jiriya dhageyso bateriga afarta adiba lagu tumay waa shilke waxaana kuu tumaya dayda dhageyso bongo waa basuuka waxaana kuu tumaya dhuljiif organtu waa bebe waxaana kuu tumaya burca qosolkii dadweynaha ila dhageyso waa daba jeex waxaana kuu tumaya ciyaal xashiish waa meelma iyo meeqa iyo marma filimkaas dalka Soomaaliya saacad kasta ka socda qarashka lagu galahayaa waa gocdo dhafta kuraas waa naxshiya bareel biya qabood kala kulmi doontaa waa rasaas iyo faleeb waxaad ku nasan kartaa dhulka hoostiisa waxaad diiday inay daawadaan muslimnimo cadaalad bini'aadanimo waxay noqdeen dambiilayaan waxa lagu xukumay xarig adag waxay ku xiran yihiin saldhigga isbaaro magaalo kasta banaankeeda magaalooyin kale ma soo gali karaan bal hadda waxaan idhi waxa lagu nasan karaa dhulka hoostiisa dadweyne uu isu fiirso is eeg isdhugo isdaawo ismiliil isu jeed isqooraanso xaggee kaga jirtaa dadkii adduunka iyo dadkii aakhiraad diriray dagaalkeena wuxuu ka socdaa qabuuraha dadkii adduunku waxay sheeganayaan reer aakhiraadkii dharbaaxan laxaadle inay ku dhifteen hanti fara badan iyo maalna ay ka qanimaysteen reer aakhiraadkiina wax su-aal iyo jawaaba midna lagama hayo waxaanse idin su-aalayaa adinka maxay ku dirireen maxaa ka dhexeeyey xaggeese isku arkay yaa badan haddaba bal dadweynow ortay barnaamijkaasi sidaasuu kusoo baxay halaagii dhacay looma kala filmaan badan oo kale oo aan sameeyey waa jirtaa laakiin waxna waxay ku fiican yihiin sidaan oo kale sheeka nin isfeeray baa ku jira nin dan leh dad uma naxo yaa ku jira waqtigeeda iyo maalmaheeda iyo yaan la fiirsanaya yaan haddii alla i gaarsiiyo aan la suganaya waxa weeye marka qabyaaladu Soomaaliya waxa ku dhacay qabyaalad jirooyinku waa kala waaweyn yihiin jiro weyn oo qabyaalada ku dhacay waxa iska dhalay baan iri Soomaaliya nin sheekh oo madaxa looga jiro iyo islaam masayrsan ninka sheekha wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu yiri aayad heblo waxay tiri rasuulku wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam xadiiskaas hebel isaasi wadadka dhiiga waa xaaraan cabbaar markuu wado ayaa waxa qabsanaya wixiisii markaas uu leeyahay ree hebel naf iyo maalba waa in la laayaa la soo dhameeyo waa wadaad madaxa looga jiro dee haddeer uga lahaa aayad heblo waxay tiri ilaahay dadkiisa dhinaca laga mari maxay taa dadkii hal soo laay ko midba waxay arkayaa soo lacag lahaan jirin baa guri dhisanaya gurigan yaa dhistay waa ina hebel markii hadda meelaha taagnahaa ma oranayo ilaahay baa wax bixiyo ilaahay baa siiyey ee adiguna ilaahay bari ama soo shaqaysa ama si kale ilaahay uga bari wuxuu go'aansanaya inuu ka dumiyo naagtana ka kufsado
ومصيرك وعدين عاسو كايستا وصلت مستر سلام مركا وحاوية قبيالة داس وقبيالة دمنا حديثة هذا الشيء كلام كعيش كينا قبيل كي هو جامسة أنا قاعد ليش بنا هو جامسة وحاوية أن سوماليا بربر كذي وحيلتها هي وتيه وي اسمه وقدت تيه بالوجرة اسمه قف عن والينا نركمش لما يسكوا عليها سرعة قبل بس وسمي مركي قبل اللي قد ويسموا هيبان معي لما يو قصة تال عيلك يقرع عنك قاموا يدي يويدا قرو كفانك قري سكرتك سومالي دي بركات قبا برينا قريبنا محا قورت النصر قولوا كلا وحوي قفع محا كدغي هذا قلد محا كدغي يقول بين محا كدغي قروح كل محا قبري كدغي قف يا قفكي وين قلد محا هو ذا السمي محا اللي يسوق من كري قولوا كلا وحوي قلت محا عسكري قح وقالوا قرشيا محا غيرنا بدل كمنات اللي وقدغ هدي سقوط درين قالوا أضيع قلت كديديو مية نبض قرشيه وقاسك ومن مي شيخ القرآن كوقت بلد شيء شرمي معلم قاري قلنوك تكسرمي الشهادة قرنا مية قول كيه به صلي قال نقادنا صلاة القبسينا قلنا ويسكبينا قلوا بقدر جنباسو المسلمين تبنا لقبين معنا وقال قاس وضرب كراوي عجري نفان دين تكون قلب من هلا قنا يايري سكورا يايري ميت كوبا يايري قرابتك دماتي كوكا مارا يايري وضبط بيد سيجو وشقي سقرفته ولا قورت يايري قوم كي لود ميان دينتو إنا قبل مع قافل مرون وانا قادم لقدي ورقوس ميش عشان سكجنا عناي واحد قال لي سنة هي الله وقبيلتي وقبيلتي مركا قبيلتي من ما تكهل ذكره هي من سيت هي قانا هي هيك هي قالتي يوسيد أي هذا تاي وحكة شيء كنا نور ببعض كجابسة أنا استدعي إلى مناطق إن أنا هلاقي أكو شيء يوشيكو أن كبيرو اللي هلاقي العلوة كلامي ما أهم سوغان اسمعها قبل معها واشيكو شيكلاس وشديدنا وحي أيام قرني وهي ولا نقول له كذا علشان بكسور كذا الله يحيي شهداء يقول كذا ها